madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo isagoo ku hadlayay magaciisa kan dawladda ka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsi u diray madaxda dhaqanka Soomaaliland waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka geeriyooday alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun caaqil Cabdilaahi Maxamed Cabdi Carab oo ku geeriyooday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo waxa uu marxuumka ku sifeeyay tiir kamid ah tiirarkii madaxda dhaqanka ee gobolka Togdheer door muhiim ah ku lahaa dib u dhiskii dalka iyo nabadeyntii bulshada walaalaha ah ee ku wada nool deegaanada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland wuxuu marxuumka alla uga bariyay inuu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo madaxda dhaqanka waxgaradka waayeelka aqoon-yahankii qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacbiga Soomaaliland ee uu ka baxayna samiriyo iimaan saadiq ee bakasiyo geesta kalena gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga isagoo ku hadlay magaca gudida fulinta kan golaha dhexe garabyada xisbiga laamaha dibadda iyo gudaha ee xisbiga kulmiye xubnaha xisbiga iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbul xaakimka kulmiye waxa uu tacsi u diray qoyskii qaraabadii eheladii iyo bahda dhaqanka iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland geerida ku timi marxuum caaqil Cabdilaahi Maxamed oo Cabdi Carab ku magac dheeraa oo ku geeriyooday magaalada Burco hoggaanka sare xisbiga kulmiye waxa ku sifeeyeen marxuum caaqil Cabdilaahi Maxamed Cabdi Carab inuu kamid ahaa oday dhaqameedka rugcadaaga ah ee kamid ahaa cuqaasha gobolka Togdheer oo kaalmo kala duwan ka soo qaatay marxaladihii kala duwanaa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadiisa ay soo mareen gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumka alla uga bariyay naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii shacbiga Soomaaliland ee uu ka baxayna samiriyo iimaan saadiq ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun